السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا channel كيف فضلا دا عصب تاع كسر بيا فاميل كي سبسكرايب كي تابو ما أنتوا حاروا هنا نتوصي سيدا كاركا وحر لا تقابت باينانس ما دام أصحابتي بدون كودي وذا جوان أفريقيا فيديو كان يسوقين مركا ما أنتوا حان نتوصينا سيدا كاركا وحر لا هدول نقطة ماستر كار فيزا كار أما ديبت كار مدة كلام وحاربين نتوصي حتى سيدا ويبسل كوين كذا كوات marka insha Allah halkan waan tusinaa labada qayb marka sidaad kaarka ugu xirleed iyo sidaad coin-kaada koowaad u iibsan leed asxaabta waxa ay sameeyaan videogan inaad dhameysataan isku day hadii kale waxa way qalad hadii aad sameysid dib ama meel loo noqdana ma lahan marka fadlan dhameyso videogan waana sahlan yahay step by step insha Allah hadda marka page-ka koowaad marka soo kicisid saan ayuu ku noqonaa waxaad arkaysaa buy and sell crypto in minutes meesha ku qoran tahay waa page-ka koowaad markaa soo kicisa hadii aad computer-ka isticmaalaysid hadii mobile-ka isticmaalaysid waa isku mid marka waxaa sameynaysaa waxaad tagaysaa qaybta ee ku qoran tahay profile-kaada oo qaybta koro meesha gambaleelka lama raba kan kale oo profile-kaada ayaa tagaysaa waxaad ku dhufanaysaa qaybta ku qoran tahay dashboard marka ku dhufatid page kan ayuu ku keenaa saad u jeedaan waxa ku qoran payment security reward waxyaalahaas dhan ayaa geeska ugu qoran qaybtaada bidixda marka waxa ku dhufataa meesha ku qoran tahay payment marka ku dhufatid kadib waxa ku soo baxayo P2B iyo buy crypto iyo withdraw P2B waxa waaye waa laba qof oo wada deal gareynaya sida aniga adigoo kale ana wax ka iibinayo qof saddexaad oo noo dhaxeynaya ma jirto adiga kaliya ayaa wada xisaabtamayno qaybta kale buy crypto waxa waaye hadii crypto aad account ku leedahay bangiis aniga hadda kaar bangi meeshan kuma lihi waa jeedaan withdraw iska daabo withdraw ma buu baanid qaybtaas ba ina aadid laakiin waa fiirinay waana labada wadan kaliya loo ogolyahay waxa waaye Australia iyo wadan kale waa laakiin qaybtaas muhiimadeena ma qaybteena muhiimada waxa waaye B2B meesha ku qoran tahay add payments aad u jeedaan halkaas ayaa tagaysaa kaas marka tagtid kadib qaybtan kale ayuu ku keenaa qaybtan waxa waaye marka inta payment aad ku bixi kartid hadii ay noqoto payslip hadii ay noqoto bangiyada qaarkood Turkiga waa u jeedaa bangiga Turkiga waa arkay bangiyo kalena way ku jiraan oo waxa tagay W-ga tagay W-ga marka taga waxa kala kulmay World Remit hadii World Remit account ku leedahay waad ku isticmaali kartaa oo maal waa gasho kartaa waana uga adeegi kartaa saad u jeedaan wuxuu ku weydiinaa telephone number-kaada iyo email-kaada waa hadii aad account ku leedahay World Remit aniga marka account kuma leeyahay waa ka soo gudbay gadaal ayaa noqday qaybta kale aan taga waxa waaye Western Union aniga kulay account oo ku leeyahay saad u jeedaan magacayga ayaa kor ka soo baxay halkaas marka magacaada ku qoraysaa iyo detailka payment-ka aad u rabtid inaad ugu bixisid qaybtan waa qaybta bangiga waxa ku qoraysaa magacaada bank account iyo sort code saddexdaas walax ayaa ku qoraysaa qaybta dambe ee ku qoranta other payment ma u baahnid inaad waxyaalo ku qortid kuwaas waa waxyaalo dheeraad waaye laakiin ma u baahnid saddexdaas shay hadii aad gelisid magacaada bank account-gaada iyo sort code aad gelisid waxa ku dhufanaysaa qaybta qaybta continue marka ku dhufatid wuxuu ku weydiinaa verification code oo number-kaada ku soo diray marka telephone number-kayga waa u jeedaan wuu ku soo diray code-ka marka hadda gelinaa marka code-ka marka gelisid kadib automatic isaga marka is register gareynaysa aad u jeedaan magacayga iyo detail-kayga waxa dhan waa wada aragtaan kadib waxa imaanaa qaybtan buy now meeshan waa marka meesha oo waxyaalo lagu kala gato coins-ka ama intaas ay rabtid inaad gadatid oo investor rabtid inaad ku sameysid meesha ku qoranta spend waxa waaye aniga kaarkayga waxa loogu talagalay 15 pound ilaa 100,000 oo wadankan Ingiriiska 100,000 ka badan wax ma ku gadi karin marka adiga wadanka joogtid waxa laga yaabaa inuu ka duwan yahay hadda marka waxa rabaa spend inaa sameeyo 50 pound oo kala meeshaas ku qoray numberka tirada adiga ay rabtid hala oo markaas isticmaalaysid ayaa halkaas ku qoraysaa 50 ayaa ku qoray kadib waxa raadinaa
shiba waa kana waa ku dhuftay shiba markaa ku dhuftay tira wuxuu isiiyey saa ugu jeedaan 1 milyan iyo 4 halahaas oo coin ayaa waxaa ku iibsan karaa 50 pound oo wadankan lacagta ingiriiska orantahay visa ama mastercard labadaba waa ku bixi kartaa kadib waxaa ku dhufanaysaa haddii aad rabtid inaad kaarkaada bedeshid change waa dhihi kartaa haddii aad rabtid inaad kaar cusub inaad ku qortid waa ku qori kartaa marka aniga hadda kaarka cusub aan marka rabaa inaan geliyo meeshaan ay ku qoran tahay add new card waa kaar cusub magacaada gelinaysaa kadib kaar numberka ayaa ku qoraysaa kabacdi date-ka oo maalintaas oo kaarka dhacayna waa gelinaysaa iyo 3 number oo gadaal ugu dambeyso kabacdi ayaad continue ku dhufanaysaa lacag waxayna kaa goosanayaan 50 pound lacagta adiga markaas ay gelisa halaas ay qaadanayaan mid kale telegramkayga hoos ayuu ku qoran yahay telegramkayga waa soo raaci kartaa halkaas ayaa waxa soo dhigaa insha Allah coinka maalintaas aniga iibsanayo si adigana oona ku dhaafin filayna wada fahanteen asxaabteeda qaar badan ayaa idin dhaafay insha Allah waxa inoo balan videoga labaad oo qaybta Binance